اللهم إن هؤلاء المسجون قدامنا. dowladda Iiraan ayaa wacad ku martay inay u aargudi doonto dilka taliyihii ciidanka gacaanka Islaamiga Qaasim Suleymani oo ku dhintay duqeyn ka dhacday madaarka caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee Baghdad ee dalka Ciraaq. Duqeynta lagu dilay Mr. Qaasim ayaa waxaa amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ka tacsiyeeyay geerida Suleyman, waxaana uu wacad ku maray inay u aargudi doonaan. Mr. Khamenei ayaa intaa ku daray in qaran oo muddo 3 maalin ah socon doonta ay maanta ka bilaabayso dalka Iiraan. Jenaraal kala dilay oo sidoo kale lahaa abaabulka xoogagga gaarka ah ee Qudus ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa shakhsiga labaad ee ugu awoodda badan Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa dhankiisa cambaareeyay weerarkan, waxaana uu ku tilmaamay fararka gixiso oo ka dhan ah dalka Iiraan. Dilka sarkaalkan sare ee ka tirsan saraakiisha ciidamada gacaanka ee Iiraan ayaa meel xun gaarsiiyay xiisadii u dhaxaysay Mareykanka iyo Iiraan, waxaana hadda laga cabsi qabaa in dagaal ka dhex qarxo labada dal. Dowladda Iiraan ayaa durba taliye cusub u magacawday ciidamada xulka ah ee loo yaqaan Qudus, waxaana taliyaha ciidanka loo magacaabay Jenaraal Ismaaciil Gaani oo hore ku xigeen ugu ahaa taliyihii la dilay. Hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku hanjabay aargudasho daran oo ka dhan ah dambiilayaasha gacmahooda dhiigga la galay, isaga oo wacad ku maray in shaqadiisa iyo wadadii uu hayay aan la joojin doonin. Dilka taliyaha sare ee ka tirsan gacaanka Iiraan ayaa xirkageliyay xiisadii u dhaxaysay Mareykanka iyo Iiraan, waxaana hadda cabsi badan laga qabaa in dagaalka siyaasadda ee labada dal u dhaxeeya isku bedelo gacan ka hadal. Qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka iyo Iiraan in xiisadda dejiyaan laguna xalliyo wada hadal, waxaana socda dadaalo badan oo looga hortagayo in xiisadda taagan dagaal isku bedesho. Dhanka kale, baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa ansixiyay qaraar ay ku baaqayaan in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan dalka Ciraaq xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhalatay uu Mareykanku toddobaadkii hore gudaha Ciraaq ugu geystay taliyihii ciidanka Qudus ee ilaalada gacaanka ah ee Iiraan Jenaraal Qaasim Suleymani. Mudanayaasha baarlamaanka Ciraaq ayaa sidoo kale isku raacay in bariga badda iyo hawada Ciraaq laga mamnuuco dhammaan xoogagga ajnabiga ah. Qaraarkan baarlamaanka ayaa ugu baaqay xukuumadda ra'iisul wasaare Caadil Cabdul Mahdi inuu xaqiijiyo soo gabagabeynta joogitaanka dhammaan ciidamada ajnabiga ee ku sugan dalka Ciraaq. Baarlamaanka waxa uu codeeyay in xukuumadda Ciraaq ay ballan qaado inay ka laabato codsigeedii ay ku dalbatay in ciidamada isbahaysiga caalamiga ay ka caawiyaan la dagaalanka Daacish, ayuu yiri afhayeenka baarlamaanka Ciraaq. Mareykanka ayaa Jimcadii la soo dhaafay dilay Jenaraal Qaasim Suleymani oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in Iiraan saameyn ballaaran ku yeelato dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan. Iiraan ayaa sheegtay inay u aargudi doonto Mareykanka dilkaasi ay u geysteen Suleyman oo lagu sheego inuu ahaa qofka labaad ee ugu saameynta badnaa Iiraan. Laakiin madaxweyne Trump ayaa ka digay aargudashada dilka Suleyman, isaga oo wacad ku maray in Mareykanku uu beegsan doono 52 bartilmaameed oo Iiraan ku yaala haddii ay Iiraan far u qaado danaha Mareykanka.